بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، شيخ عبد القادر إلهي سبحانه وتعالى وحين قبرينا إنه جنة الفردوس جيوه وحين وتعزينا دمان dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed markay joogaanba iyo dadkii eheladiisa ahaa ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ka siiyo sabir iyo iimaan. inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar. naftu way dhimanaysaa, ta'adadat al-asbab wal maut wahid. geeridu waa mid kali ah, laakiin asbaabaha ayaa kala duwan. ilaahay subhanahu wa ta'ala waqtigu talagalay buu dhintay Sheekh Abdul Qaadir Farax. waxaan qabaa geeri xayi ah aad wanaagsan oo dad fara badan ay ku kuumiyaan noocan oo kala dhibashadeeda inuu dhintay. ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu ka dhigo shahaado uga dhigo gacan ka gardaran oo zaalimada baa dishay. waxay ahayd maalin jimca bay ahayd oo rasuulkeenu yiri salawaatullaahi wa salaamu calayhi khayru yawmin طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. وحاو خير بدن مالين قرحي صوب حضو مالين تجمعها ماشي اللي قد ريديجي سي مسكحيس اللي قد هاديي. وحي أهيد بيتك إلهي في بيوت أذن الله أن ترفع فيها ويذكر فيها اسمه يسبح فيها بالغدو والآصال رجال. قريه إلهي سبحانه وتعالى اللو تاقي اللو ديسي اللو عبادي سنيي رقو كعبادي سنيين ilaahay ammaanay ayuu ka mid ahaa guriga dhexdiisa la dhigay oo meel sharfan baa lagu dilay. waa wax qiimo badan isaga agtiisa. wuxuu ku jiray salaad buu ku jiray, allah subhanahu wa ta'ala buu hortaagnaa, rabbigii buu la khitaabayay isagoo ragcadii saddexaad ee salaada casar ku jira oo sami'a allahu liman hamida. ilaahay waa ajiibay ciddii mahadisay isagoo leh amala rabbana walakal hamdu. rabbigaygiiyow adigaan ku mahadinayaa isagoo leh oo rabbigii hortaagan oo munaajaha ilaahiisi la hadlaya oo allah subhanahu wa ta'ala waa qofka muslimkii markuu tukanayo la koodaya isagoo ilaahay hortaagan baa la dilay. waxaan qabaa waa nasiib aad u weyn baa ilaahay siiyey. ilaahay subhanahu wa ta'ala shahaado uga dhigo maalinta jumcaha casarka ilaa maqribka inta u dhaxaysa waa waqtiga saacatul ijaaba ay mar ku tilmaameen. xilli aad u fara badan oo zamanka haddaad eegto maxaan ku dhahdaa xaaladda uu taagnaad eegto waxaynu leenahay wax weyn baa u xasilay. ilaahay ha u barakeeyo shahaad waynu leenahay. haddaynu taa ka soo gudubno, yaa dilay daa'ifee dishay al-shabaab, amniyaadka shabaab la yidhaahdo. qolada aynu leenahay waxa weeye waa dooxato ama waxa weeyaan dadqalladii baa dilay aynu ogeyn soomaali dhameeyey. oo waxaynu leenahay majmuucadaasi waa majmuuco dad badan aan ka warhaynin. haddii sheekhuba taabtay hadda inay khawaarij yihiin oo manhajkii khawaarijta ay ku shaqaynayaan oo rasuulku salawaatullaahi wasalaamu caleyh axaadiis aad u fara badan kaga hadlay oo ay ka mid tahay inay muslimka laynayaan yaqtuluuna ahla alislaam wayadacuuna ahla alawthaan. waxay laynayaan dadka muslimiinta ah, dadka mushrikiintaana weydaynayaan oo dhaqanka aad uga muuqda ah iyo wax kaloo ka sii badanba. waxaanu leenahay waa kaloo lagu lamaan yahay khawaarijnimo oo keliya ma aha. waxa weeye ummad kale oo cadow islaamka u ah oo bulshada Soomaaliyeed col u ah ayaa nimankan ay u shaqaynayaan. ajandahaas ay gudbinayaan inaan ummadda Soomaaliyeed halka raacin oo ummadda marka ay laynayaan caalimkooda ay dilayaan oo cirooli ay dilayaan oo ay maxaan ku dhahdaa ganacsatadii ay dilayaan, aqoonyaankii ay dilayaan. maxaad ka tawaqaysaa qof kasta oo bilbigayda ah oo ummaddu in la badbaadiyo oo la ilaaliyo sharcigu u qabo oo dhaqanka iyo curfiga caadiga u qabo dayn maayaan. waxay ku talagaleen cid kasta oo maskax ummadda saraakiil, aqoonyahan, madaxweynayaal, cid kasta oo ummaddan wax ka qaban karta ama danteeda ka hadli karta ayay waxa weeyaan qoorta ka goynayaan. nimankaasi waxa weeyaan waa majmuucada noocaasa oo labada fikradood inay gaalo u shaqaynayaan iyo cadow ummadan baabiinaya iyo inay ku shaqaynayaan fikirka qaldan ee gaalaysiinta labadaas way isugu lamaan yihiin. waxaanu leenahay daa'ifadaasi waxa weeyaan waa daa'ifo aad u fogaatay. waxaanu leenahay dadku inay ku baraarugaan oo aad u fahmaan
ومركا علماء الله ينيو معناه وحويان وحو حنبارسين إنك العالمكي ودينته ومنهجك إلهي كتابكيس يصني رسولك أي دقال قوها وين فعلا لكن وحويان محيك قال كلام إلهي بالقرآن كي يدينته يومط إلى سنة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بإلهي أنك سودة دينته أنك إلى شرعنا سيدا الشيخ يوسف الشيخي نوعا أوكال التاريخ الإسلام هو يصمرين ضد ضلان والسلف بإلهيين لكن وحكم يدفن نلتقي مع الإسلام كو وحوي واقنك لها كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوعب وحوي ينبور جبل وميلك تاغن بعيد كما حكو قراعي وحوي لنا نحوك قاد كرا نكي بور ميل تاغن ربا إنه حكو قراعه أو بور تفتشيه أو حكو يستو محو يالي كلا يساقون باتارية يا ناطح الجبل أشفق على راسي لا تشفق على الجبل نكا بور تمال حكو قراعيه وحوي لنا هاي أبو نفط هذا أطلق بور تحكي قاد ميس الإسلام هو جبل ومثل الإسلام في ميلك استيجوب تبع عيد وحكا قاد ميسو هذه عبد القادر ربنا بانوف وحين لنا الشعب كلهم بعد ديارسن ومداس إسلام كا مد عينية يمد ما رجتي واحد بدن قبل كره وحين لنا هي ضدكم يلي وسووا الشيء مهمة وحكومة وشعبا دولة يو نظام يلا شراء يو معمولات دمان يشعب وين حلوين بين صارن ضعيفة النوع عاصر خطرتها حلوين بين صارن موقف يمكن تاجنا شرعيان وأدري سنتين dadkaasi in la iska qabtay u baahan yahay oo la iska qabto oo ummaddu meel uga soo wajeesato oo aynu noqono farta lagu wada fiiqo sidaas ayaa sharci ah waxaynu u baahanay marka arintaas dad badan baa u dhabargodaya dad badan baa laga yaabaa inay soo dhawaysanayaan dad badan baa u haysta inay yihiin dad waxtar ah waxaynu leenahay waahimin baati waa hurdaan war ma haysan waxaynu leenahay intaas haynagu filaato waa yaragnimo haynagu filaato wax garad haynagu filaato وحوي رسول صلوات الله وسلامه عليه وليه نوعا وكلا مرفوع الله لعن الله من آوى محدثا إذا سوده ويستلقى الله وضب لغا يابا إن قويا ككرينيا ضب لغا يابا إن باورتك ككرينيا ضب لغا يابا إن إمارتي قرب سينيان رسولك عليه منك محدثك ظالمك أمتا دبايا ديك مسلك دادينيا أمتا دبابينيا إذا سوده ويسا إلهي هن عضلوا برسول كله صلوات الله وسلام عليه ورنعدش إلهي نحريص الله ديريو وما أفكي سكرتي وحيولانا هاي ضدك النوع عاصو هلا برارو ونمان كاي سوده ويسا الشمره وحيولانا هاي نمان كاسي إنك معها هذا مش عارف صومالياتنا إنك معها وأيو نبي الله نوح عليه السلام ويلكي سبحانه إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إنه هذا ولي قال هذا كمان هذين لكن وحيولانا هاي سوي شقين أيان إنك معها خيرها معها وإن لو فهموا برنامج كلمة كان وطن وحي سمين المركة قاركود إن غيرها ملح يسوق الشان نمانكو طل صومالي ومعها طلقها معها ليسوا من أهلك أهلك معها وين ضرينا وكوحنا عاصر اسكو حران ومدى الله صوت دري بلنتيدا وحين نباها نمركة إنه فهم ساعة كتاردنه وموقف يسوي لتشينا إنه مدعى سلو بهي بساس وحين لنا هاي نمانكاسي إلهي سبحانه وتعالى من كل دينينا إننا نترين لقدبون وما يسكتنا ما نبى شعب كان يدور كذا هربحه ما يلطه ما نعلم هربحه ما الاسم كان هربحه ما يمدحوينه هربحه ما يسركها كلها هربحه مرة منها هربحه بس هذا كوديني سندال يروي ما يلطه بالكجوابتي أساسا كودينا بس ترين لقدبون وماذا ترين لقدبون إن انكتشناه أو تلاوح كور إن لقيتشناه وماذا صومال ملك تيجوا تبع تاس أيام مقنيسة وحنا تايج وقصوا شيء لما جيران تود إلهي وفرنتهاي لكن هو طائفة عصابة خطيرة مال حوح مرينا يس إلهي وحن كبر سبحانه وتعالى ساعدنا نشوفنه وموقف يعني متاجنا هاي إلهي سبحانه وتعالى إنه وحنا قد صقوه اللهم شتت شملهم اللهم فرق جموعهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود سبحانك اللهم